markuu qofku wax bixiyo isbedelka wanaagsan ee maskaxdiisu dareentaa wuxuu la mid yahay ka uu qofku dareemo markuu xoolo soo kasbado ay uu soo shaqaysto jeebka ku soo rito sooma yar barbaraano weela mafsuula maanta ku soo in markuu soo helo waa faraxsan uu qoslay ama markuu hamadiisa guto xaaskiisa la kulmo ama markuu casuumad wanaagsan ku faraxsan yahay culo sidoo u mafsuudo saddexda xaaladood ayaa qofku marka uu wax bixiyana maskaxdiisu ay u mafsuudaamayna oo sadaqadii sacaado ayuu ka helayaa sidoo xaaladaha kale baahiisa uu guto sacaadada iyo raaxada uga helo waxa kale yiraahdeen qofka buka marka uu dadka kala wax siiyo ala sabiil musaacada isagoo uga jeeda inuu caawiyo fa inna dhalika yusaaciduhum ala shifaa'i bisur'atin akthar taasi dadka buka waxay ka saacidaysaa si degdeg ah inay u caafimaadaan ilaa cudurkii qayb dhan oo boqolkiiba 30 lagu sheegay waa dareena marka dareenkiisa baa wanaagsanaaday qofkii kolkuu wax cid siiyay saadaradeed cudurkii uu ka fududaanaya caafimaadkiisa degdegaya waana tuu nabigu inoo sheegay markuu ridaawu mardaaku bisadaqa dadkiina buka sadaqada ku daweeyay sidaa daraadeed ayaa qaar kale oo ka sii daba tagay waxay yiraahdeen wallahi in hadhihi nasiiha min aqrab an-nasaih talada noocaas waa tala qariiba bayna qof buka oo ma intuu wax iska bixiyo iska caafimaad qaar kale ka sii daba sanqaraya kuwa warbixinta sheegay waayahay diraasad kale ayaa waxa ay sheegaysaa in ficla shay'in hasan lil aakharin مثل تقديم المال أو المساعدة يرفع النظام المناعي للجسم ويبقي قلبك صحيحا ويهدئ زحف الشيخوخة أو يبطئ زحف الشيخوخة إن أتصب فلسفة يسابينا حيالا لو قاعدين وحكمنا قفك أصب فلسفة نوعيني سكالدون صب فلسفة كوسبة حوتي كرتا قيبت شركة دفاعة iyo qalbi caafimaad qaba iyo odaytinimada ay ka dib dhigtabayna hareer magaal halkaas ay dhalinyaro ku jirta waxay ku leeyihiin nimankii wax baarbaari jiray xadiiskii soo aragnay wayuqdi zahfa shaykhuh idaadiisi qofkii ay weynaato qofku hadii la urfuulo oo maskaxdiisu xumaato waa cibri degdegaya qalbiga ku wanaagsanaaday difaaca jirka fiicnaanay baynaadeen iyo odaytinimadii oo ka dib dhacda kala nimanka khubarada baabka ku ahay waxay ku naseexaynayaan bi darurati at-tasamuh wal 'afw بشكل ايجابي وهذا يساعد على صحه الانسان قفك انه كددالو deeqda iyo dulqaadka dadka wax la siiyo iska cafiyo arintaasi shakl iijaabi macnaha dariiqo hagaagsan waxa ay caawinaysaa caafimaadka insaanka way barbar dhigeeno waxay dhaaf fal hiqd wa hubb al intiqam يقود الاجتهادات على القلب وارتفاع ضغط الدم والإصابات بالالتهابات قفك لكن نقضى الشخصيات هذه يتر أرجوسيغا جعل نحل يقول الله بتيس كوب بداية هاي تاسوحة أي كيري كرتابين شركة إلى كوب ديسو هرمون رضا نبكى كوه أما عامل شركة صوت ديرية إلا هو شركة دفاع كتير على يساره عابداas uu soo deynaya wadnaha iyo dhiigaba culayska ku ah yaadi karkiisa badanaya saadaradeed ba Soomaalidu waxay oran jireen ciilkaba koro lama noqdo ara ku dhool ciilkaba koro ah adu ba culays ku saaraya marka iska raaxaysanay kuleeyeen dadka iska cafcaf waxna iska siisi waduhulaha ku nasto culayskii dhiigaaga fuuli lahaaya dhiikar kugu dhufan lahaana ka naso wal isaabat bil iltihabat infeksha kula kugu yaraan iyaba waxa oo de marka difaaca qofku hoos u dhaco waxa hadiya jeer bataa iltihaabaadkiisa iltihaabaadku waxa weeyda xanuunadoodu dhuglaato ila AIDS-ku maxaa kale u sameeyay AIDS-ku wuxuu sameeyay difaaci qofku hoos u dhigaya infection kasta iyo cudur yar oo kasta uu dhuglaanaya marka qofku idan ta ay ka hadlayaan waa taas qofkii waxa ka yaraanaya culayskii fuuli lahaa waxay yiraahdeen as-sadaqatu dariiqu sacaada sacaadada wax la yiraahdo ka lumay gaalada سعادة والراحة الدنيا تيبا كلمي توش بيستان توش كاسة كل ما بير يركو افتبيها سعادة يبال سعادة يبال مركا بيالها أنا كده يديرو طبعا دينا ديتا لا ينوشك تي مركا يجو سعادة يجو ديدا وحي صاهر علينا هذه الصدقة طريق السعادة صدقة رجاء
وسعادة دونيني هي الراحة نلاشة وحبحين تنابا والضوء بينه مركزا وحي باحثين تلين إن الصدقة إن النفقة على المحتاجين ضدك باهرة وحلسية تنشط مناطق من الدماغ تماما وكذلك الكلمة طيبة قيمة بدنا مسكحة كبيرة أي سياسة فريد دمائية في الفرعونات مركو ضدك هذا لما عاقفك كل هذا مركو وحونا أكسن سيو يجينا طبعا توافي عم قفك سيريا قفك مركو مفصوضية مسكحة قيمة كبيرة من فرحتك لسائية نشاط بينها تاسي سيدا دراديد با markaa waxa ay ugu naseexeeyeen nimanka iyaga ah in la iska ilaaliyo al-isaa'ah bil kalimati sayyi'ah kelmadda xun dadka lagu isticmaalana iska ilaali ila jawaab xun ba ku idanayso kaana xiraysa kelmad fiican iyo wax fiican bix idal kalimata tayyiba afdalu min al-mali ayay leeyihiin binisbati lid-dimaa way sii wadaano waxay yiraahdeen xataa inaad dadka hadal fiican ku tiraahdaaba waxay ka fiican tahay inaad siiso xoolo adigoo xumaynaya inaad xoolo siiso waxa ka fiican inaad xoolaba siinine aad hadal wanaagsan oo mafsuula ku tiraahdo aad ka yara farxiso waxba waa siinayna taa quraankeena inoo sheegay Soomaali ya ilaahay baa inoo sheegay wuxuu qawlu ma'ruf wa maghfiratun khayrun min sadaqati yatba'uha adha هذا الوناكسن يقف قد اسكن عفتا دبكو كوغو سميه با كفيعان صدقه دغات راعن ويسي وذانا waxay yiraahdeen infaq al-ma'i 'ala al-fuqara yuzilu ash-shu'ura bil-khawf wal-iktiab bisabab al-ihsas bis-sa'adati wat-tumanina qofku markuu fuqarada iyo dadka u sii baahan wax siiyo arintaas waxay ka fududeysaa maskaxdiisa marka la eegayo dareenka jirkiisa cabsida uu dareeri lahaa qofku iyo iktiaabkuna waxa weeyaan murugadii haysatay murugadii iyo cabsidii qofka way ka yaraataa markii la daraasiyay la baaray waqtiga wax bixiyo ila sadaqada bay daba socdaan qofkii wax bixiyay qalabkiina ku rakibay yahay natiijada ay maskaxdiisu sheegaysaa waa maxay waa ka bixiba record laga sameeyo la ururaya nafs shay ilaahay ba ka hor inoo sii sheego waxa uu alladina yunfiquna amwaalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun dadka wax bixiya sadaqadooda bixinaya waliba badiya habeen iyo maalina si muuqatay si qarsoon u bixiya cabsi iyo buruga midna ma haysatan walaay ibka iyagu soo ilaahay waa helay inagu hore inoo hayday ilaahay baa inoo sheegay subhanahu wa ta'ala way sii wadeeno waxay yiraahdeen al-khubara an-nafsiyun nimanka hadiya jeer cilmu nafsiga dadka u qaabilsan ama qofku markuu isku buuqo iyo loo geeyo halkan inaga cilaajka loo geeyo de culimada quraanka ku akhrido iyaguna markuu mid isku buuqo stress ku dhaco isku daato kii cilmu nafsiga u geeyo baa la yiraahdaa waxay yiraahdeen inna nifaaqa wa tasaamuh wax bixinta iyo illa isasaabaha mid al-ashyaa' ar-raa'i'a waxay ka mid tahay waxyaabaha aadka u qiimaha badan allati yaqumu biha al-insaan min ajli sa'aadati sahiha min ajli sa'aadati wa sihhati wa waxyaabaha wanaagsan qofku sacaado ku heli karo raaxo iyo caafimaad وللتخلص من هموم الحياة iyo burugada nolosha inuu ka nasto dadka oo saabaxo qofku iyo isagoo wax siiya dareenku qaadanaya waa maxay kaad wax siisay uu ku ducaynaya uu ka farxinaya kii aad saabaxday markii hore aad daba socotay isaguna uu ku bahadaqaya markasta oo dad faraxsan aad aragto ku ducaynaya ku bahadaqaya way ka farxiyeen markay ka farxiyeen adigina waad degtay oo wixii ku saaraa iyo way ka degeen ila dagaal baad ku jirtay marka qof wax ka doorayso habeeniya maalin waad fikraysa aroorta saad maxkamadda uu kaleeyo halka kaga dhufan lahayd lawyer-ka waxaad u sheegi lahayd isagu hadduu ka yiraahdo adigu ka dhaxa awraadiga gogasha jiifa ayaa dagaal ku jirtaa laakiin markaad fiishta ka saartay aad iska nasato adiga cidda u horeysa dhifsibo adiga halka ka raacaya halka الله وحده الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ومحسن محسن كان إلهي ما تجعل مركا وحنا أركانون إحسانك جوابتيس لماذا قرب ومركا سيب عليه وحينا إن الصدقة تزكي الدماغ والقلب وتزيل التوتر العصبي وتخفف هرمون الإجهاد كما بسط في الدراسات وتزكي الجهاز المناعي لتنشيط قدرته
qofku markuu wax bixiyo waxay nadiifisaa wax bixintaasi maskaxda qalbiga dareemada had iyo jeer khalkhalku ku dhace casabiga ah ee qofka didsanaanta iyo kakaraanta ku keeni kara waxay fududaynaysaa hormoonat al-ijhaad juhdiga ama culayskii ku dhici lahaa dheecaamuu jirku sii daaya qofku markanuu farxana dheecaamadii sacaadada iyo farxadda markanuu kareedan yahayna dheecaamadii kulaylka iyo kareedka kuwaasaa ka yaraanaya bayna awoodiisii difaacuna kor bay u kacaysa marka waxay yuzakii bay cabirayaan maskaxda u nadiifisaa qalbiga u nadiifisaa jirka u nadiifisaa iyagu jirka ka waramayaan naf iyo ruux bay yaqaanaan allah inoo sheego wuxuu khud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakiihim biha taskiya wa sadaqaat ku nadiifinayso wax la nadiifiyana waxa u qiimaha badan ruuxda ayaa u qiimo badan iyagu sheegeen inay jirka nadiifiso noocyadiisa kala duwan ama wax u tarto nafta ayaa u fiican iyo ruuxda waxay sadaqadu nadiifiso marka halka ka soo baxay labadii dhinacba jir iyo ruuxba sadaqadii ila nadiifinaysa barakaynaysa waxay yiraahdeen in sadaqata tablahuka saada wa kullama ahsanta lifaqa sa'ita akthar wax bixintu bay yiraahdeen qofku waliba isaga wax biliif garaysanoo de inuu maartay sadaqa ahaan u dhiyoonayo wax bixinaya marka iyagu da kariisad bay u dhiibaanay waxay ku siinaysaa saada bayna waliba bay yiraahdeen kullama ahsanta lifaaq waxa aad bixinaysaa aad doonayna aad siiso wixii aad ka doonaysana aad ubadeysana oo labada isku darto فوائد طبية فائدين عافمات بيلاده بين الشرك قيبي سكلة ولا مهمة أهمها التخلص من الذكريات السيئة وحنا أقوم مهمسا حصوصه حما أي كحريس كوحبات كل هاي أو أدوبات كدور ليسي ككلاويس ليسان ويسقون ويسوع على ليسان تهين ككلا حاكل أبال بوكاغا معي ويسقون واحد كدور ليسي وبورشيس كسيا برها للجليل dadkii nooca ahaa oo dhan marka iska saabax aad maartay iska dhaafto waxa meeshii ka baxaya maskaxdaada adikriyaatu sayi'a xusuusihi xumaa markastoo xusuustii xumayda aad iska dhaaftana dib u socon bay sida horaad u soconaysa Soomaha waxay ilaa marka ka waramayeen dumarkana waxa u daran bay ilaa ciirtad bogatiya casar seexato ragana ciilkaba kore iyo calooshi la ciyaar hadday islaantu casarkiina seexato cirkeedana bogatay intay dharagto casarkii iska seexato shaqadeedii way kabtay ku leeyahay dhulkuna hadduu noqdo calooshi la ciyaar iyo ciilkaba kore uu caraysan yahay ka uu caraysay ka loo caraysay ka soo hormaray baa ku leeyahay marka waxay ku leeyahay dikriyad sayya xusuusiyo xumaa markaad iska laabtay iska wada cafido naftaada wixii ku dalacnaa uu ka degaya waa dafisaysa hubuubti iyo kadeedkii oo dhan baad ka dhasanaysaa bayna waxaana yaraynaysaa wixii ay u yaqaaneen hormoonaatul ijhaad waa tanshiidu nidaam almanaaci markasta oo culaysku jirkaaga ka yaraadana difaaciisa kor u badanaya hadduu difaaciisu batana cudurradii baa kaa yaraanaya haddii cudurradu kaa yaraadaana sacaadadii baad helaysaa bay ku leedahay alla waxa uu waliyacfuu waliyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum wallahu gafuuru raxiim wain tacfuu watasfaxuu watagfiruu faina allaha gafuuru raxiim marka waxay leenahay inagu haddaan cafiska sheegtay in lagu helayo sacaadada adduunyada waxa lagu helayaa sacaadadii aakhirada oo dambi dhaaf iyo janno sida ilaahay uu ballan qaaday ta muhiimka ahina waxa weeye sacaadada aakhira iyo cafiska ilaahay inaad hesho alla wuxuu yiri marka aad wax bixisaa de cafiska ilaahay inaad helaysa idan marka halkaa waxa ka buuqanaya waxa isku midabay leeyihiin xagga waxtarka jirka inaad qofka wax siiso iyo wax aad ka doonayso inaad u dayso ilaa hunaaka wa i'taa'u wa ibraa وحسين يسابحين قفك وحي aad ka doonaysa hadii aad u daysid dawaado saabaxayo kale waadigo siiyo kala